دباتة جرتا وارون دباتة وجرتا ميل والبا لكن محاكي أنا وحا صورا إلهي وحده قل هو من عند أنفسكم بإلهي وحلي وحا أدونك دوش هذا دباتة أتكو أركيسان هذا عريري أركتان إنك أجيستي بإلهي هذا عبسي هذا أركتان عبسي إنك أجيستي بإلهي هذا علاد هذا أركتان علاد إنك أجيستي بإلهي هذا أبار أركتان أبارت إنك أجيستي بإلهي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بإلهي وحد مصيبة الله كلانتان هذا أركتان بإلهي ووحد قعمه إنك أتكو جيستين markaasaan inta badan masaa'ib inta badan cuqubada waa naga cafinaa inagu ma soo celinaa ba ilaahay dadku markay dambi ay galaan hadii dambiga lagu qaban lahaa qofna adduunka ma dul joogeen maanta dadka adduunyada jooga البرقس أدونك دوشة دايرة يجوعان دتكو ما تحق وملاي واي عمل أنا دوية كوتشوغنا ما هي صنّو لكن وحنا دوية كوتشوغنا إلى هيد القاد كسا كوتشوغنا أعمال أنا دوية دوشة كوتشوغنا ما هي صنّو عيال إلهي ولا عاسنا يا معلم والله ساعدوا البلاه وأنا عاسناينا أرجع كو عاسناينا ومقال كيبان كو عاسناينا ودليرنمدي baan ku caasinaynaa oo amnigii baan ku caasinaynaa oo barwaaqadii baan ku caasinaynaa oo caafimaadkii baan ku caasinaynaa ilaahay waa dulqaad ilaahay dulqaadkiisu nagula socdaa inaka maanta dulqaad badana waa ilaahay waalay sidan inaku aan nahay hadii ilaahay nagula tacaamuli lahaa inana adduunyada daqiiqad ku noolaano xaq uma lihin baa la yiri maxaa yeelay inta ilaahay caasinaysa ayaa ka badan inta ilaahay adeecaysa inta gaalada ayaa ka badan inta muslimiinta inta ka tukanaysa inta aan ka tukanayn ba ka badan inta runta ku mucaamaloonaysa inta beenta ku mucaamaloonaysa ayaa ka badan inta masaajida camiraysa inta suuqa camiraysa ayaa ka badan inta islaamnimadu ay ku weyn tahay waxa ka badan inta qabyaaladu ay ku weyn tahay ba ka badan إلهي إنك ولما تعامل يا سيدا أنك أنه وحنا ولا تعامل يا سيدا إلهي جل وعلا يسوي يحي إلهي وضل قاد بدنه وأنا حريص بدنه وعفيس بدنه ودافتهم بدنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إمام النووي رحمه الله مركو أرضي سعيدة وشرحي ووي بالي ووي حتى دولكو كدعي بالي مركاسو كعلي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم مركاسو ميانا داركي مبير إلهي عز وجل نحر إنو دنبي دافيو إنو الله دنبي دافها يهي نحريس بدنها ويهي إلهي عز وجل أساقا اسكن نسبيي عذاب كان وحو إلهي كدق وحو سقو لي يهي بكدق ودتك كعب سينايو نحريستا يا دنبي دافكا wuxuu ilaahay u nisbeeyay maaragtaan daatadiisa u nisbeeyo sagaas ku nisbeeyay oo markaas uu ilaahay ku yiri nabigiisa Muhammad kaleey salaatu wasalaam adoomahayga waxaad uga warantaa inaan ahay Allahi dhaafitaanka badnaa ee naxariista badnaa inaan ahay u waran baa lagu yiri waxa kale oo ilaahay u leeyahay wa anna cadaabi huwa al-cadaabul aliim cadaabkaygu waa kuleelkiisu waa daran yahay ku dhaba lagu u sheeg marka ilaahay waa dulqaad badane إلهي مركاها كحشونه ونبينا وكيلها استحيوا من الله حق الحياة حشوتك إلهي جل وعلا وحق أولها إن لو حشود إلهي وحشود أبو النبي ويدي مركاب الصحابة وراد النبي الله إلهي وكحشونا وأنا نم هنقي النبي إلادين مركاس النبي يقول حشوتكم ما حصل أدو فهمتين وحويان مدح يا وحكويا الله وين إلهي كحشوتان مدح محكويا الله عرب كيف كويا الله هذا الكيبا كصوب حيا عقل كيبا كويالا أرق كيبا كويالا مقل كيبا كويالا حبناها جرك ماذا حاجة كويالا أردن وحبناها جرك بني آدم كأقوم مهم سن إلهي باكوسية إلهي كحشو وإيش هذا هكو إيجن إلا وحو إلهي رالك يا هيم ويان مقل كاجها أسخيرن وهكو دقيسن إلا وحو إلهي رالك كي هيم ويان عرب كاغا حكو حلن إلا وحو إلهي رالك يحي مويان
caqligaaga ha kaga fikirin ilaa wuxuu ilaahay raalli ka yahay mooyaane caloosha iyo hareeraheedana buu nabigu yidhi ilaahay kaga xishooda caloosha maxaa ku yaalla calooshaada marka hore xaaraan ha gelin jirka xaaraan ku koro buu nabigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doontaa caloosha hareeraheega maxaa ku yaalla cawradii baa ku taalla qofka cawradiisiiba halkaa ku taalla cawradaadana ilaahay kaga xishooyo faaxishaha la doonan weeyaan macnuhu walaa taqrabu zina zinada ku dhaca ma ha ku dhicina lama odhan ha u dhowaanina baa layidhi dawaaciya zina waxyaabaha zinada keena qofka inuu ku dhaco waa maqalka waa hadalka waa daymashada waa taabashada waa hasaawaha waxaasoo dhan baa qofka muslimka layidhi ka dheerow zinada maaha wixii zinada keenayay oo dhan baa lagu leeyahay ka dheerow ha u dhowaanba oo xubnahan ilaahay ku siiyey ilaahay kaga xisho ilaa adigu ma lihid arag waa nicmo ilaahay ku siiyey waxaad ku aragtay waa laga xisaabin doonaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula waxaanad cilmi u lahayn ha iskor taagin baa ilaahay yidhi maqalka iyo aragga iyo qalbiga intaa waxaad ku isticmaashay oo dhan maalinka aakhira waa laga xisaabin doonaaye waa lagu weydiin doonaaye aduu ma lihid waxan waa nicmo lagu siiyey ninka askariga ee dowladda shaqo u dhiibato darayska waa dharka suunka kabaha goofiyadda baaskooladda waxaasoo dhan gaadhiga maxaa loo siinayaa inuu danta qaranka ugu adeega ayaa loo siinayaa bal ka waran haddii ninka askarigu wixii dowladdu ay lahaydee layidhi shacabka ugu khidmee hadduu danihiisa u adeegsada ka warrama uu dadka ku dhaco maalin baa la qaban ogow maalintaa la qabtana shaqo adag baa laga qaban walilaahi almathalu laclaa ilaahay mithaalka uu ka sarreeyaaye waxa weeyaan innaguna ciidankii ilaahay baa nahay oo waxaan jawaarixdeenna ku taallo oo dhan waa wax ilaahay inoo dhiibto ilaahay uu nasiyo inagu leeyahay aniga igu adeeco igu soo dhowaada igu raalligeliya laakiin innaka maanta waxay naga maraysaa maqalka aniga iskale waxaan doonaan ku maqlay aragga aniga iskale waxaan doonaan ku eegay lugaha aniga iskale anay igu yaaliin meeshaan doonaan ku mari gacmaha aniga iskale waxaan doonaan ku qaban may adu ma lihid waxaasoo dhan ma lihid waa ammaano laguu dhiibtay waliba saad u isticmaalaysay diintaa kuu sheegaysa saad u isticmaalaysay aragga sidee loo isticmaalayaa qur-aanka iyo sunnadaa sheegaysa maqalka sidee loo isticmaalayaa qur-aanka iyo sunnadaa sheegaysa wakhtiga sidee loo isticmaalayaa sunnadii qur-aanka iyo sunnadaa sheegaya dhaqaalaha ku soo gala sidee loo isticmaalayaa qur-aanka iyo sunnadaa sheegaysa dhallinyarnimadaada ilaahay ku siiyey sidee loo isticmaalayaa qur-aanka iyo sunnada nebi maxamed baa sheegaysa timaha ilaahay baa ku siiyey mid baan ku idhi timaha xaggana waad ka xirtay xaggana waad ka xirtay iska daa markaasuu idhi sheekh timuhu madaxaygay ku yeelin anaa iskale buu yidhi se uga dhaadhicin ilaahay baa ku siiyey waxaa dhibaato maanta ummaddeenna haysata gaalanna ilaalisa iyo gaalanna kala ilaalisa iyo gaalo aan wax moodno iyo gaalo aan isku ekaysiinno iyo gaalo waxina siisa waxaasoo dhan waxa keenay wax kale maaha waa bucdu can alislaam islaamnimadeennii baa ka fogaanay diinteennii baa ka fogaanay bas wanarjac ila allah ilaahay aan u soo noqonno oo waxaan toobad keenno oo islaamnimadu nolosheenna ha ka muuqato oo guurkeenna ha ka muuqato oo ganacsigeenna ha ka muuqato oo tarbiyadda awlaaddeenna ha ka muuqato oo safarkeenna ha ka muuqato oo dhallinyarnimadeenna diinta islaamku ha ka muuqato guurkeenna diinta islaamku ha ka muuqato guurkeennu maanta waa nuuciyey ninka wax raadsan ninka dhallinyarada markuu gabadh raadsanayana siday diintu ay tidhi uma raadsadeen si kale u raadsadaa ninka dhallinyarada guurdoon markuu yahay hooyadii baa u haasaawiya walaashii iyo habaryartii iyo eddadii inantu markay qaan gaadhana
aabaheedii abtigeedii walaalkeedii iyo maartana adeerkeed baa u soo haasaawi innakana maanta zamankeennan gabadha oo aabaheed awliyo uu haysto aqalka dhex fadhida laga dhamaystay wax walba waa balaayadan maqal iyo muuqaalka gacmaha ku sidan aaba wuxuu leeyahay inantaydu ma baxdo waa guri joog laakiin inantiisu social media ga dhex socotaa warna uma haya isagii wa media ga ka shaqaynayana ayakuna waxay fidinayaan ma aragtaanay khayrka ha fidiyaan baan leenahay khayrka fidiya yaanan xumaan iyo macsi dadka aan dhex wadin maxaa yeelay haddaad ummadda khayr aad dhex waddo khayrkaas uu ku raagi doonaa weliba ilaa qiyaamuhu ku socon doonaa haddaad laakiin social media-ga aad ku faafisid ma aragtaane xumaanta aad ku faafisid adoo qabriga ku jira xumaantii qabriga adigana way kugu imana ogow adduunyadana way kaaga hadhay ogow alla fahmay allah ina fahamsiiyo nabiga ku salliya فإن شاء الله نولشين الدين هكذا قول كأنه الدين هالنقطة إن شاء الله هذا مع السيادة هكذا لنا نولشين مع السيادة وقفك بين آدم كا عمري سبركة ذاك قادا دقالي سبركة ذاك قادا ريركي سواي باب إيسا أولادي سواي باب إيسا قول كأنه وحنا كذا جينا قول كوا ونصف الدين بالنبي يقول قفك دوق قرصدو دين تكلبر بو غاري بو نبي يقول كلبر كان إلهي كبقو يا نقالي كدغنا كدغنا فضيدية أروس كو كخر الشيري هاي بو كخ بركة بدن يهي بو رسولك يري فاطمه محمد ودل عليه الصلاة والسلام سيدي لو قد سي وضبان مقشانين بدن علماء دكتور مقشان علي بن أبي طالب النبي قو مسكيت كو سي سعودا أيو النبي علي بن أبي طالب ولها ساوي على يوم ما قرستي ما قرست ومع ذو قرسل هذا هاي والنبي الله سعلوك فقير أنا ما وحكوا قرسلان هاي استابو كويري مركب وردقال كي بريقا أنقل لي ده بريه لقد دقال لما يقاشان دي يدروع دي الحرين يبرتا هاي برتي وان هاي ساي ويد حلي سنتي ما حي نقول يسايب له واحد العقا ونقول يسايب مركب النبي صلى الله عليه وسلم كويري فاطمة كسيه كويري فاطمة وين محمد أيام كقول ده قوان كسيه أراد برتاس المجالات جي سوق جيو واحد نقطة أيام مهرك وقد جي نايم النبي كويري وفاطمة بنت النبي نبي جبدي ولما معها النبي موسى نبي إبراهيم معه والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هبين كينا وحوري وكاسة قد فضانا كساحدا بركنتانا بركدا ويل كان نبيها كنا صدى صعد أقول أقل كأول رجع بكوري دورها بين كدمنا صلاة الليل كي بوك عيور كعوت كذا وما حيرددوا وفضيدنا إننا غير بركة سن أولاد بركة سن بيكتتجين حسن يا حسين والنبي يقولي سيدا وأنعم أهل الجنة والنبي يقولي حسن يا حسين وحويان شباب كجنة قليا والله بدا أقول سيد سنة وقبر واقع سمو رسولكم عمار الأصمع بوها نكي وضيقي عمار الأصمع الأورنجري إنكي سيبوية لمالك أنا سبوية قال أنا صوب قبر بانكوي هاللي قبر بانكوي هاللي عروس كاجينا عاونو ديار قروني دركر صوحو صوب بدله بوكويري أنا صحوها مركان ندير وهذا قروح بدن بوها وعب مركاسا بعد العشاء يجيب الله قاضي قبل مركي عقدي الله سميي مهركي وحوشي دماتي أي الله قاضي ولا قلبي مركا قولك قبل كجرتي بلقي عروسدي مركو أقل كأقل وحي نقطي تيرو قابن أو كوسن أو عن قروح بنين يسوون وحول نقطة ندير وعضو قروح بدن دائما دل يرضوا حيجعلي مدة مالين يقولي ورمحادو قرسوا إذا كانوا واش خيساية وعرك قبر قروح بدن ما والله يقولي
markaas aqul adigu maada qurux badan waad fool xuntahay waa ajiib bani aadamku moogtahay wartu adigu kala oo iska guursan baan ku yiri waqtiga ba ka dhacay adiga laakiin qofka dhalinyaradu wuxuu jecel yahay mar uu la gabadh cad oo qurux badan oo sidoo isagu doonayay in lagu abuuray aad moodo marka buu arko uu ka naxay baa leeyahay kolkaas ay ku tiri hamrugoon bay ku tiri laga yaabaa reerkeena khayr bay ilaahay inuu ka soo saaree hamrugoon bay ku tiri soo soco marka buu yiri kullay aabaha iyo hooyada gabadhan waxay kuugu dooreen waa khayr ku og yihiin iska basmalaysa buu gabadhii markuu guursaday ilmihii u horeeyay gabadhaasi ay ku curatay wuxuu noqday imaam daarul hijra imaam Malik ibn Anas ban iyo noqday ilmihii ay ku curatay imaamkeena weyne Shaafici rahimahullah macallinkiisii bay gabadha ku curatay limaada laana gabadha diin baa lagu soo doortay laguma soo dooran qurux iyo qabiil iyo dhaqaale midna laguma soo dooran marka daa'iman guurkeena waxaanu eegaynaa akhlaaqda wanaagsan qofku diin ma leeyahay eegmayno qofkan qurux ma leeyahay quruxda qofku qiimo uma yeesho qofka bini aadamka quruxdu lacagtuna qofka bini aadamka qiimo uma yeesho qofka bini aadamka quruxdiisu waa tabiicadiisa wanaagsan tabiicada wanaagsanna waa diin waxa keenta qofku si kastuu u falxun yahay muuqiisu hadduu dabeecad wanaagsan yahay qofkaasi ummadda uu ku dhex noolan kari si kastuu qofku u qurux badan yahay hadduu xagga dabeecadda ka aradan yahay qofkaasi reerna dhiqi maayo mujtamacana ku dhex noolan kari maayo lidaalika nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahay markuu ammaanayay muxuu ku ammaanay wa innaka la'ala khuluqin azim akhlaaq wanaagsan marka gabadha diinta la qaado gabadhana waxaan leenahay adiguna ninka diinta iyo dabeecadda wanaagsan nabu nabigu hadduu in yimaado u guriya gabdhaheena arooskeena culimada han weydiino diinul urs reer marka la dhisaayo shariicadu sidee bay qabtaa in loo dhiso culimada weydii hoteelada ku geynaya adiga maxaa social media gaad isla dhigi oo Facebook gaad isla soo dhigi ninkana lagu meheriyo baa ninku kuwas adduunka leedahay ay daawada la rag ku noqon maayaan kanun baa ilaahay ka dhiga calafkaaga adiga iska bismilayso hadaad qurux leedahayna isaga tus quruxdaada hadaad dargaaga xidhana isaga u xidha lagu ma diidano isaga isku qurxisada doonto laakiin gabadhu waa cawrana in banaanka loo saara maaha iska daa suuradeeda in la arkay hadalkeega in la maqla maaha albaabka bay culimadu leeyihiin fiqigu wuxuu dhigayaa iridda marka uu nin garaacayo ay gabadhi aqalka joogto yaanan hadal jilicsan kula hadlin waa inay tiraahdo war waa kuma yaa waay raxmar saasidan soma waa hebel odaygii ma jooga war ma joogeen naga tag horada xagga miskiinka ka doondoon aan ku geen xilligan hadal adag wayna kula hadasha oo qalafsan haday tiraahdo ka waran yaa doonaysay adaan ku doonayay dee booran marka iyo bariyaan eraya waxaan arkaa macaana iyo qanaan waxa ka baxa gabadha muslimadu waa cawro hadalkeegu waa cawro socodkeegu xataa waa cawro in la arka ma iyadoo socota xataa ragga hadday hormaraysa baa lagu leeyahay inay isjibiso looma ogolo waa inay islaam duqoo gabowda sideed u socotaa diintu siday ku tiri kolkay gabadhu u socoto ninkaagii diinta lahaa isagaa ilaahay aqalka kuugu keenay at-tayyibaatu lit-tayyibiin wat-tayyibuuna lit-tayyibaat nin saalixa ayaa nin dhalinyaro u yimid oo ku yidhi sheekh gabadh wanaagsan sideen ku helaa ii sheeg wuxuu yidhi adigu nin wanaagsan noqo buu yidhi iyadaa ta wanaagsan ku imana buu ka yidhi gabadha wanaagsan ilaahay nin wanaagsan buu u keenaa walow iyadoon wejigeeda la aragba oon hadalkeega la maqal oo socodkeegana aan la garanba ilaahay guriga isaga kugu keen ninkaagii wanaagsan adiga diintu siday tiriha ku socono nolosheenu markaa way barakoobi arsaaqada inoo barakoobi awlaadda inoo barakoobi ma fahamteen allah inoo dambi dhaaf allahna inagu anfaco dee kollay waana iyo wacdi culimmadu way noo wadaane
dhagaheena dhagihii laabta u daloolay Allah ka dhigo nin xakiima oo xikmad badnaa ayaa inankiisii isagoo waaninaya wiilkii uu dhalay buu ku yidhi aabba 8 arrimood oo xikmadan kuu sheegaya 8 si fiican u dhagaysa buu ku yidhi aqal xaqan naas haddaad gashid indhahaaga dhowro dad haddaad la joogtidna carabkaaga dhowro carabkaaga ilaali buu yidhi salaada haddaad tukanaysidna qalbigaaga ilaali waad aragteen oo markaa salaada xidhanno qalbigan uu ka baxaa miskiidka cuntada markaad cunaysidna buu ka yidhi calooshaada ilaali ha buuxin macnaha weeyaan haddaad cuntada aad caloosha ku wadidun waad bukoon xanuunada dadka inta badan maanta haya waxay ka qaadeen waa cunno aanan fiicnayn oo dhacsan iyo caloosha oo qiyaastii loogu talagalay la dhaafiyo wuxuu yidhi laba shayna weligaa ha xasuusan buu ka yidhi wanaag dadku ay kuu sameeyaan ha xasuusan iyo dhibaatada dadku adiga ay kugu sameeyaan dad bini aadan aad ku dhex nooshahay walaalaha baad la nooshahay reerkaaga aad la nooshahay saaxiibada baad la nooshahay qaraabadaada ayaad la nooshahay kullay wax weyn dhex marayaan marka haddaad qof walba wuxuu dhibaato kuu geystay mar walba aad maskaxda ku haysid qof xun oo waxaad noqonaysaa cuqdadaysan baad noqonoo cuqdadii ay ka buuxdo marka wuxuu ku yidhi dhibaatada dadku adiga ay kugu sameeyaan iska dhaaf oo waxaad ku sifowdaa walcaafiina can annaas ku sifow kuwa dadka cafiya noqo dadkana ixsaanka adigu aad u samaysid ha xasuusan buu ka yidhi maxaa yeelay qofka markaad wax u qabanaysid ama aad wax u taraysid ajarkaaga waxaad ku leedahay ilaahay ka qaada buu yidhi labana wuxuu yidhi weliga ha halmaamin waa labada aan u socdo sheekhuna inagala hadlay mid ka mida weeyaan wuxuu yidhi ilaahay ku abuurayna xasuusnow mar walba daarta aakhiradeed u socotayna ha halmaamin buu ka yidhi xasuusnow labadaasi qofka muslimka waa inay mar walba hor yaallaan haddaad hurdo ka soo kacaysana labadaasi ha ku hor yaallaan sida muraayadda aad iskugu eegto waa inaad fii kulli saaca saacad walba aad xasuusataa ilaahay inuu ku arkaayo ku maqlaayo aakhira inay jirtana xasuusnow waa inaga reexa markaa idhahda aakhiraa warjira baad tidhahdaan aakhiraa warjira labadaasi qofka muslimka mar walba waa inay hor yaallaan hadduu qofku labadaa mar walba uu xasuusan yahay waxay ka dhigan tahay qofkaasi waa qof kamera ay hayso oo macsiyo badan qofkaasi ka dhici mayso sida waad aragteen iminka moolalka iyo dukaanada iyo xafiisyada iyo meel walba maanta kamera lagu xidhay magaalada hataa meelaha markaan soo marayno baraha kontaroolka dadka lagu kontaroolo dhalinyarada caskartu wayna yaqaanaan oo bahalkan ay naga arkeen social mediaga marka mid baa nagu yidhi nima baadheen oo nima dhaadhiciyeen laakiin kamera ay haysa buuri kamera ay haysa waa lay arkaya anigana kamerada bini aadanku uu sameeyey baa dadka maanta ay ka baqayaan ilaahay kameradiisa maxaan uga biqilaanahay ilaahay wallahu bima tacmaluuna basiir والله خبير بما تعملون إنه عليم بذات الصدور إلهي عز وجل أكور رمي إنه وحول بأركايو وحول بأمغلايو حادتكم ما أنت أي ما حيكون عددتكم إلهي إني عاصيان وحمان يكون هلان وحمان أي سمعيان والزنا أي كون دعان وملحون أي تجان والظلم أي جيستان محاكي أنت وحكي أنت بإليه علماء
waxay nagu yaraatay muraqabadii bay nagu yaraatay ilaahay bay arkayo ee maqlayaba qalbigeena ka baxday kamerada bini aadamku ay sameeyeen qof walba uu iska ilaalinaya nin ganacsada ah oo taajira oo dad badan oo shaqaale u shaqeeyaan ayaan maalin xafiiskiisa ku booqanay marka halka waxa horta la shaashad way ba horta la xafiis walba marka halka uu ka daawanaya markaas aan ku niri dadka ku shaqeynaya gabdhaha ku jirey gabdhahana laga yaabo marmar inay maradu ay ka dhacdee markaas uu yiri maybe kamerada markaan xafiiska aan ku rakibay xafiis walba markaan kamera ku rakibay shaqadeedii bay hagaagtay buuli saacadihii ay soo shaqo tageedina way soo shaqo tagaan tuugadiina way yaraatay buuli oo markaa dooftidna mobilka kala socdaa buuli oo dadka ku shaqeey maxaad ka aaminsan tahay markaa wuxuu ka aaminsan yahay wada tuug inay yihiin rag iyo dumarba kamerada oo dul keenay ayuu leeyahay taas ma aragtaan ay ilaalinaysa haye maalin kale haddana mid u shaqeynay baan meel ku arkay salaamu calaykum adeer iska waran ma fiican tahay war ninkii hebel baad la shaqeysaa Soomaaliya hebel baan la shaqeeyaa buu maalin man xafiiska ku arkay markaas aan ku yiri ma qasraad la shaqeysaa wuxuu yiri 7 sano lacag muxuu nisiyaa ogaha $250 buu yiri ma ni kordhiyay ma ya sanad walba wuxuu nagu yiraahdaa waa ni kordhin waa ni biirin magaala wadankeena nin ka been badan ilaahay ma abuurin buu waa been ale buu shaqaalihiisi isaga waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay magaalada ninka ugu been badan asaguna iyaka wuxuu ka aaminsan yahay inay yihiin tuug maxaa keenay dadku inay kala aamin baxaan waxaa keenay cabsida ilaahay baa nagu yaraatay kan beenta sheegaya beenta cidda ku qabsan doonta ma yaqaano kan waxadaya tuugadu inay dambi taho lagu qaban doono aakhira ma yaqaano way loobay lidaalika dad badan baad arkaysaa maanta kul aakhira warki aakhira danteed aakhira yeelkeed buu kuleeyahay adduunka la joogay aakhira mana ka gaadhnay aakhira kama dheero innahum yarawnahu ba'ida wa naraahu qariban ba ilaahay dadku waxay moodayaan aakhiradu inay fog tahay annaguna waxaan u aragnaa ba ilaahay arintu inay dhowdahay ba ilaahay marka kaamirada ilaahayna dul dhigay waa maxay ilaahay waa ina arkaya oo ina maqlaya haddana ilaahay ina la jooga adiga qofka ku ag fadhiya laabtiisa waxa ku jira kama warqabtid walaakin ilaahay tabaaraka wa taala qof walba laabtiisa waxa ku jira ilaahay waa ogyahay marka ilaahay aanan iloobin ilaahay aan la halmaamin ilaahay xasuusno ilaahay aakhirada xasuusno waxa kale oo ku dadaalaynaa walaalayaal waxaad maqlaysaa baryahan meel walba colaad ba ka socota abaara jira dhibaato jirta warun dhibaato way jirtaa meel walba laakiin maxaa keena waxa soo dhan ilaahay wuxuu yiri qul huwa min indi anfusikum ba ilaahay yiri waxa adduunka dusheeda dhibaato aad ku arkaysaan haddaad cidhiidhi aragtaan inninkaa geystay baa ilaahay yidhi haddaad cabsi aad aragtaan cabsida inninkaa geystay baa ilaahay yidhi haddaad colaad aad aragtaan colaadda inninkaa geystay baa ilaahay yidhi haddaad abaar aragtaan abaarta inninkaa geystay baa ilaahay yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir baa ilaahay yidhi waxaad masiibo aad la kulantaan aad aragtaan baa ilaahay yidhi waa waxa gacmihiinna inninku aad ku geysateen markaasaan inta badanna masaa'ib inta badanna cuquubada waa naga cafinaayo naguma soo celinaa baa ilaahay yidhi dadku markay dembi ay galaan haddii dembiga lagu qaban lahaa qofna adduunka ma dul joogeen maanta dadka adduunyada jooga ilbiriqsi adduunka dusheeda inay joogaan dadku maanta xaq uma leh
waayo camal aan adduunyada ku joogno ma haysanno laakiin waxaan adduunyada ku joognaa ilaahay dulqaadkiisa ku joognaa acmaal aan adduunyada dusheeda ku joogno ma haysanno maxaa yeelay ilaahay waa la caasinayaa maalin walba saacad walba ilaahay waan caasinaynaa araggaan ku caasinaynaa oo maqalkii baan ku caasinaynaa oo dhallinyarnimadii baan ku caasinaynaa oo amnigii baan ku caasinaynaa oo barwaaqadii baan ku caasinaynaa oo caafimaadkii baan ku caasinaynaa ilaahay waa dulqaad ilaahay dulqaadkiisuu nagula socdaa innaka maanta dulqaad badana waa ilaahay waxaa la yidhi sidaan innaku aan nahay haddii ilaahay nagula tacaamuli lahaa inaan adduunyada daqiiqad ku noolaanno xaq uma lihin baa la yidhi maxaa yeelay inta ilaahay caasinaysa ayaa ka badan inta ilaahay adeecaysa inta gaalada ayaa ka badan inta muslimiinta inta ka tukanaysa inta aanan ka tukanayn baa ka badan inta runta ku mucaamaloonaysa inta beenta ku mucaamaloonaysa ayaa ka badan inta masaajidda camiraysa inta suuqa camiraysa ayaa ka badan inta islaamnimadu ay ku weyn tahay waxaa ka badan inta qabyaaladu ay ku weyn tahay baa ka badan ilaahay inagulama tacaamulaya sida annaku aan nahay wuxuu nagula tacaamulayaa sida ilaahay jalla wacala isagu yahay ilaahay waa dulqaad badane waa naxariis badane waa cafis badane waa dhaafitaan badane nabbi cibaadii annii ana alghafuuru alraxiim wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim imaam annawowi raximahullah markuu ardaydiisa aayaddaa uu sharxayey uu ooyey baa la yidhi uu ooyey xataa dhulku ku dhacay baa la yidhi markaasuu ku celiyey nabbi cibaadii annii ana alghafuuru alraxiim markaasuu yidhi miyaanad arkayn buu yidhi ilaahay caza wajalla inuu dembiga dhaafayo inuu allihii dembi dhaafaha yahay naxariis badanaha uu yahay ilaahay caza wajalla isagaa isku nisbeeyey cadaabkana wuxuu ilaahay ka dhigay wuxuu isagu leeyahay buu ka dhigu dadka ku cabsiinayo naxariista iyo dembi dhaafka wuxuu ilaahay u nisbeeyey maaragtaan daatadiisu u nisbeeyo isagaa isku nisbeeyey oo markaasuu ilaahay ku yidhi nebigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam addoommahayga waxaad uga warantaa inaan ahay allihii dhaafitaanka badnaa ee naxariista badnaa inaan ahay u warran baa lagu yidhi waxaa kaloo uu ilaahay uu leeyahay wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim cadaabkaygu waa kulaylkiisu waa daran yahay ku dhabaa lagu yidhi u sheeg marka ilaahay waa dulqaad badane ilaahay markaa ha ka xishoonno oo nabigeennu waa kii lahaa istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa xishoodka ilaahay jalla wacalaa uu xaqa u lahaa in looga xishoodo ilaahay uga xishooda buu nebigu yidhi markaa bay saxaabadu yidhahdeen nebi allow ilaahay waan ka xishoonnaa waanan u mahadnaqaynaa bay yidhaahdeen markaasuu nebigu yidhi xishoodku maaha sidaa aad u fahamteena waxa weeyaan madaxa iyo waxa ku yaalla waa inaad ilaahay kaga xishootaan madaxa maxaa ku yaalla carabkii baa ku yaalla hadalkii baa ka soo baxaya caqligii baa ku yaalla araggii baa ku yaalla maqalkii baa ku yaalla xubnaha jirka madaxaaga ku yaalla oo dhan waa xubnaha jirka bini aadanka ugu muhiimsan ilaahay baa ku siiyey ilaahay kaga xisho oo ishaada ha ku eegin ilaa wuxuu ilaahay raalli ka yahay mooyaan maqalkaaga ha u sakhirin oo ha ku dhagaysan ilaa wuxuu ilaahay raalli ka yahay mooyaan carabkaaga ha ku hadlin ilaa wuxuu ilaahay raalli ka yahay mooyaan caqligaaga ha kaga fikirin ilaa wuxuu ilaahay raalli ka yahay mooyaane caloosha iyo hareeraheedana buu nebigu yidhi ilaahay kaga xishooda caloosha maxaa ku yaalla calooshaada marka hore xaaraan ha gelin jirka xaaraan ku koro buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doontaa caloosha hareeraheega maxaa ku yaalla cawradii baa ku taalla qofka cawradiisiiba halkaa ku taalla cawradaadana ilaahay kaga xishooyo faaxishaha la doonan weeyaan macnuhu walaa taqrabu zina zinada ku dhaca ma ha ku dhicina lama odhan ha u dhowaanina baa layidhi dawaaciya zina waxyaabaha zinada keena qofka inuu ku dhaco waa maqalka waa hadalka waa daymashada waa taabashada waa hasaawaha waxaasoo dhan baa qofka muslimka layidhi ka dheerow zinada maaha wixii zinada keenayay oo dhan baa lagu leeyahay ka dheerow ha u dhowaanba
وحبناها إلهي كسيي إلهي كجحشو اللي أدوك ملهد أرق والنعمة إلهي كسيي وعدكو أرقت ولا حسابين دونا ولا تغف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وحان العلم أولهين هسكرتها جنبا إلهي يدي مقلك إيا أرقا إيا قلبك إنت وحدكو استعمال شيئا بالك آخرة ولا حسابين دوناي ولا قويدين دوناي هذو ملهد وحن ونعمة لقسيي تلك عسكرية الدولة شقاو ديبتو دريسكا ودركا سونكا كبها قوفيدا باسكولدا وحاسودا غاريغا maxaa loo siinayaa inuu danta qaranka ugu adeega ayaa loo siinayaa bal ka waran hadii ninka askarigu wixii dawladdu ay lahayd ee leeyahay shacabka ugu khidmee hadduu danihiisa u adeegsado ka warrama uu dadka ku dhaco maalinun baa la qaban ugu maalinta la qabtana shaqo adag baa laga qaban ولله المثل الأعلى إلهي مثالك أو كسر يا وحويان إنكنا عيدا كإلهي بأنحي أو وحن جوارح ذنا كنت هلا أردن ووحي إلهي نودي بتو إلهي ونسيو نقول يا هي أنا جاي يقول أضيع ويقول سود وهذا يقول رالي قليا لكن إنك ما أنت وحي نجمر إيسا مقال كأنا جالس أسكله وحن دونا نكون مغلي أرجع أنا جالس أسكله وحن دونا نكون أجي لغها أنا جالس أسكله أنا يقول يلين ماشي عن دونا نكون مري قعمها أنا جالس أسكله وحن دونا نكون قبل مي أدم ملهد وحصودا ملهد وأمانة لقول ديبتي ولا بس هذا استعمال يسي دين تكون شيء جالس هذا استعمال يسي أرجع سيد الله استعمال يا قرآن كي السنة ده شيء جالس مقال سيد الله استعمال يا قرآن كي السنة ده شيء جالس وقت سيد الله استعمال يا سنة دي قرآن كي السنة ده شيء جاي دقالها كسوق على سيد الله استعمال يا قرآن كي السنة ده شيء جالس دل يرني ما ده إلهي كسي سيد الله استعمال يا قرآن كي السنة النبي محمد ده شيء جالس تماها إلهي بكسي بانكوري تماها حاجة نوات كحرتي حاجة نوات كحرتي اسكت أمر قاسولك شيخ تمهم ماذا حقيقي كوي اللي أنا أسكله أقول لي سوق داعين إلهي بكسي إلهي عز وجل وحول بو النوع عدي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ما هالدين توح والله قو عدي ولي إلهي قدرتي سوحا كماذا شريعات مركو إلهي سوده جنيو دادك مركابا قصر كوقاتا كما بلابا دعوت بو إلهي كبلابا رسالة دي سدعوت نبي إلهي صدر دادك كو دحجري مركا وربا والله حقاجيو إلهي توسيي كواسا مركا كل أنا كان نقول ضيدا إلهي نسدن ونليه سدن يالا حمانتنا ككالايا لبداس شريعة إسلام كل لبدا بين إيمانيان معروف يا منكر بين معروف وأمر يا نهي بين إيمانيان لبدا بالنبي يدنا ويكون رقم المرك ورودنا كونا سليه بيك كتوسية مركز الشريعة دنا إسلام كقبل ما يسددك الدين إلا جعليسيو مركز إلى هيري قد تبين الرشد من الغي ولبا والينيك العبد يبا طريقة سوى حق راع عسكري قولي كوكو هيو طريقة مركو لما تشرو مؤدن كوكو اعظامي دقاها يقول وي مغليان علماء دو وحبي كو شاقي لعاقي مشاهر ديكو مسينيسي جمع عدد دعاء ميل كستين نوغو إيمانيان وين ليه إلهي كبقى مساجد دا نور راعو دينتين نحن نقنا وكل بانينا لعاقي مشقين هذا كامل ربان وحصل ومحي ومحي قد تبين الرشد من الغي ويان حقي بالوعى عضينا مؤذن كوا داعي عالم كوا داعي مسلم كي اسحل قاده دين تك شغيني وداعي هبين كي مالنت ودعوه هبين كدن با كله ايات بان هي الهي ugu garo maalintii baa kule aayad baan hay ilaahay abuuray ugu garo
daruurta da'aysaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo dhulkaas socotaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo biyahaad cabbaysa ayaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo badda halkaa taagan ee aan soo dhaafayn ayaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo neefka geela eed ilmihiisa ku sii daynaysid sidaad ka qabanaysid ee ilmahaaga caanaha aad uga maalanaysid sida ku eegaya ayaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo buu ku leeyahay qofka waalan ee arkaysid ayaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo qofka faalishku ku dhiftay ee lugtiya gacantu fadhiisatay maydka qaybta dhan shalalku ku dhacay dhakhtarada jiifa ayaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo shalay anigu waan caafimaad qabo sidaadaan u socday ilaaha sidaa aniga ii jiifiyey adigana uu ku jiifin karaaye ha caasina ilaahay ka baq buu ku leeyahay lisaanul xaal buu kugu leeyahay lisaanul qaal kuguma leeyahay laakiin ayaa ku cibro qaadanaya maanta kii dhallinyaradaha wuxuu leeyahay sheekh dhallinyarnimada ha igaga ciyaarin buu mid iga yidhi mid baan ku warna raaco dacwado wuxuu yidhi sheekh inninkuba dhallinyaradiina waa soo marteena waa xilliga eegeenna daa buu yidhi markaan da'diina gaadhaan masaajidda soo galaynaaye ma waxaad ogaatay cimrigaaga adduunyada aad ku joogtay miyaad ogaatay intuu yahay inta ku hadhay ilaahay han u soo noqono ha toobadkeenno waxaa dhibaata maanta ummaddeenna haysata gaalanna ilaalisa iyo gaalanna kala ilaalisa iyo gaalo aan wax moodno iyo gaalo aan isku ekaysiinno iyo gaalo waxina siisa waxaasoo dhan waxa keenay wax kale maaha waa bucdu can ilislaam islaamnimadeennii baa ka fogaanay diinteennii baa ka fogaanay bas fanarjac ila allah ilaahay aan u soo noqonno oo han toobadkeenno oo islaamnimadu nolosheenna ha ka muuqato oo guurkeenna ha ka muuqato oo ganacsigeenna ha ka muuqato oo tarbiyadda awlaaddeenna ha ka muuqato oo safarkeenna ha ka muuqato oo dhallinyarnimadeenna diinta islaamku ha ka muuqato guurkeenna diinta islaamku ha ka muuqato guurkeennu maanta waa nuuciyey ninka wax raadsan ninka dhallinyarada markuu gabadh raadsanayana siday diintu ay tidhi uma raadsadeen si kale u raadsadaa ninka dhallinyarada guurdoon markuu yahay hooyadii baa u haasaaw iyo walaashii iyo habaryartii iyo eddadii inantu markay qaan gaadhana aabbaheedii iyo abtigeedii iyo walaalkeedii iyo maartana adeerkeed baa u soo haasaawi innakana maanta zamankeennan gabadha oo aabbaheed awliyo uu haysto aqalka dhex fadhidaa laga dhammaystaba wax walba waa balaayadan maqal iyo muuqaalka gacmaha ku sidan aabba wuxuu leeyahy inantaydu ma baxdo waa guri joog laakiin inantiisu social mediaga dhex socotaa warna uma haya isagii wa mediaga ka shaqaynayana iyakuna waxay fidinayaan maaragtaanay khayrka ha fidiyaan baan leenahay khayrka fidiya yaanan xumaan iyo macsi dadka aan dhex wadin maxaa yeele haddaad ummadda khayr aad dhex waddo khayrkaasi uu ku raagi doonaa weliba ilaa qiyaamuhu kuu socon doonaa haddaad laakiin social mediaga aad ku faafisid maaragtaanay xumaanta aad ku faafisid adoo qabriga ku jira xumaantii qabriga adigana way kuugu imana ogow adduunyadana way kaaga hadhay ogow alla fahmay allah ina fahamsiiyo maan soo gaabinaa ma saacaddii baa gaadhay yaa waan soo gaabinaynaa insha allah nabiga ku salliya fa insha allah nolosheenna diin ha ka dhigno guurkeennu diin ha noqdo insha allah dhahada macsiyadda ha ka ilaalina nolosheenna macsiyaddu qofka bini aadanka cimrigiisa barakadday ka qaadaa dhaqaalihiisa barakadday ka qaadaa reerkiisa way baabi'isaa awlaaddiisana way baabi'isaa guurkeenna waxaan ka dhigaynaa guurku waa nisfa diin buu nebigu yidhi qofka hadduu guursado
diinta kala bar buu gaadhay buu nabigu yidhi kala barka kana ilaahay ka baqo yaanan qaali ka dhigina han ka dhigna fudaydiya arooska uu ka kharash yar yahay buu ka baraka badan yahay buu rasuulku yidhi faadimo maxamed uu dhalay calayhi salaatu wassalaam sidii lagu dhisay waad maqasheen in badan culimadaad ka maqasheen cali bin abi taalib iyo nebigu miskiidka u sii socda ayuu nebigu cali bin abi taalib ulahaasaa uu yidhi caliyow ma guursatay ma guursan oo maxaad u guursan leedahay oo nebi allow sacluug faqiir aanima waxa ku guursadaan haystaa buu ku yidhi markaa buu war dagaalkii berigaa aan gallay birihii lagu dagaalamayey iyo gaashaanadii iyo duruucdii la xidhanayay birta ahayd oo birtii waan haystaa way daxalaysantee maxay noqonaysaa buu wax lacag ah uma noqonaysee markaa buu nabigu sal ly slam ku yidhi faadumaan ku siiyey buu ka yidhi faaduma oo ina muxameda ayaan kugu deeqo waan ku siiyey orodoo birtaasun magaalada gee suuqa geeyo waxay noqotay ayaan meherka uga dhigaynaaye buu nabigu ku yidhi waa faaduma binta nebi gabadhii waliba maaha nebi muuse nebi ibraahim maaha waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeenkiina wuxuu yidhi waa kaase qadiifadaana ku seexda barkintaana barkada weelkaana biyaha ku dhaansadoo socda buu yidhi aqalka u wareega buu ku yidhi dhowr habeen kadibna salaataleelkii buu u kiciyey yidhi kacoo tukada waa maxay hurdadu waan fudaydinaynaa reer barakaysan awlaad barakaysan bay ka tageen xasan iyo xusein uu nebigu yidhi سيدا وأنعم أهل الجنة بنبي حسن يا حسين وحويان شباب كجنة قليا والله بدا أقول سيد سنة وقبر واقع سمو رسولكم عمار الأصمع بوها ننكي وضيقي عمار الأصمع الأورنجري با إنكي سيبوية لمالك أنا سبوية قال أنا صوب قبر بانكوي هاللي arooskaagiina caawan u diyaar garownay dharkar soo xidho soo bedela buu ku yidhi anas wuxuu ahaa markaa nin dheer oo aad u qurux badan buu ahaa oo cad markaasaa bacd alcishaa'igii baa la qaaday gabadhii markii caqdigii loo sameeyey ee meherkii wixii hawshii dhammaatay ayaa la qaado waa la gelbiyey markaa qolkay gabadhu ku jirtay baa la geeyey caroosadii markuu aqalka u galay waxay noqotay tu yaroo gaaban oo kuusan oo aan qurux badnayn isaguna wuxuu noqday nin dheer oo cad oo qurux badan daa'iman dhallinyaradu waxay jecel yihiin mid baa maalin igu yidhi war maxaad u guursan weydaa ka yidhi waa shaqaysaaye wuxuu yidhi gabadh qurux badan baan wallaahay buu yidhi markaasaa ku yidhi adigoo maadaa qurux badan waad fool xuntahe وعجيب بني آدمكم وقتها ورتو أديكو كلام نسكب برسبة كودي وقت جابا كان عيا ديجا لكن قف كذا يردو حجعلي أمر ولا قبل عضو روح بدنه سدو دونه إلا جو أبو ري أدمود مركب وأركو وكان حيب الليل كل كاس يكتر هم رجوم بيكتر لقى يا برير كأن خير بيلاحين وكسو صاره هم رجوم بيكتر صوصه مركب وكل أبها يهويدا قبضاً وحي كوجود دوران وخير كوجيهينه إسكاب بسم الله يسوي قبضي مركو جورسدي علمه هو الرئي قبض أسيا كعرته وحون نقضي إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس بن ينقضي المهيرة المهيرة كعرته إمام كان وين الشافعي رحمه الله معلن كي سيبي قبض كعرته لماذا لأن قبض الدين بالغو صوت دورته laguma soo dooran qurux iyo qabiil iyo dhaqaale midna laguma soo dooran marka daa'iman guurkeena waxaanu eegaynaa akhlaaqda wanaagsan qofku diin ma leeyahay eegamayno qofkan qurux ma leeyahay quruxda qofku qiimo uma yeesho qofka bini aadamka quruxdu lacagtuna qofka bini aadamka qiimo uma yeesho qofka bini aadamka quruxdiisu waa tabiicadiisa wanaagsan tabiicada wanaagsanna waa diin waxa keenta qofku si kastuu u falxun yahay muuqiisu
hadduu dabeecad wanaagsan yahay qofkaasi ummadda uu ku dhex noolan kari si kastuu qofku u qurux badan yahay hadduu xagga dabeecadda ka aradan yahay qofkaasi reerna dhiqi maayo mujtamacana ku dhex noolan kari maayo lidaalika nabigeena muxamed sal allahu alay wasalam ilaahay markuu ammaanayay muxuu ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq wanaagsan marka gabadha diinta la qaado gabadhana waxaan leenahay adiguna ninka diinta iyo dabeecadda wanaagsanna buu nebigu dhaha hadduu ini yimaado u guriya gabdhaheena caruuskeenana culammada han weydiino diinu lcurs reer marka la dhisaayo shareecadu sidee bay qabtaa in loo dhiso culammada weydii maxaa hoteellada ku geynaya adiga maxaa social mediagaad isla dhigi oo facebookaad isla soo dhigi ninkana lagu meheriyo unbaa ninkuu kuwaas adduunka aad leedahay ay daawada le rag kuu noqon maayaan kanunbaa ilaahay ka dhiga calafkaaga adiga iska bismallayso haddaad qurux leedahayna isagoo tus quruxdaada haddaad dargaagaaba xidhana isaga u xidho laguma diidano isaga isku qurux sidaa doonto laakiin gabadhu waa cawrana in bannaanka loo saara maaha iska daa suuraddeeda in la arkay hadalkeega in la maqlo maaha albaabka bay culimmadu leeyihiin fiqigu wuxuu dhigayaa iridda marka uu nin garaacayo ay gabadhi aqalka joogto yaanan hadal jilicsan kula hadlin waa inay tidhaahdo war waa kuma yaa waayo reer xamar saasay dhahan sooma waa hebel hebela odaygii ma jooga waar ma jooge naga teg horada xaggaa miskiidka ka doondoon maxaana ku geen xilligan hadal adag waa inay kula hadasha oo qallafsan hadday tidhahda ka waran hee yaa doonaysay adaanku doonaya dee buu odhan marka iyo baryahan eraya waxaan arkaa hee macaane iyo qadhaan macaan iyo qadhaan waxaa ka baxa gabadha muslimaddu waa cawro hadalkeegu waa cawro socodkeegu xataa waa cawro in la arka ma iyadoo socota xataa ragga hadday hormaraysa baa lagu leeyahay inay isjibiso looma ogolo waa inay islaam duqoo gabowda sideed u socotaa diintu siday ku tiri kolkay gabadha u socoto ninkaagii diinta lahaa isagaa ilaahay aqalka kuugu keenay alطayibaatu liلطayibiin wاlطayibuuna liلطayibaat nin saalixa ayaa nin dhallinyara u yimid oo ku yidhi sheekh gabadh wanaagsan sideen ku helaa ii sheeg wuxuu yidhi adigu nin wanaagsan noqo buu yidhi iyadaa ta wanaagsan ku imana buu ka yidhi gabadha wanaagsan ilaahay nin wanaagsan buu u keenaa walow iyadoon wejigeeda la aragba oon hadalkeega la maqal oo socodkeegana aan la garanba ilaahay guriga isaga kugu keen ninkaagii wanaagsan adiga diintu siday tidhi ha ku soconno nolosheennu markaa way barakoobi arsaaqadda inoo barakoobi awlaadda inoo barakoobi ma fahamteen allah inoo dambi dhaaf allahna inagu anfaco dee kollay waana iyo wacdi culummadu way noo wadaane dhegaheenna dhegihii laabta u daloolay allah ka dhigo dhaguhu waa labo dheg hee laydha u daloosha xaggan ka maqasha xaggan ka saarta iyo dheg halkee u daloosha laabta u daloosha wixii la shaga qaadatoo maqasha maanta dadka wacdi kuma yaro cilmi kuma yaro laakiin waxaa inagu yar camalfalka inagu yar diintana waxaa lagu camalfalaa waa hadba qofka intuu alla ka cabsi uu leeyahay ogow hadba intuu yaqaano maaha hadba intuu qofku ilaahay ka baqo ayuu diintiisa ku camalfalayaa marka alla ka cabsigana allah ina siiyo bishii barakaysneeda rabadaanna way nagu soo dhowdahay ha loo diyaar garoobo ha la toobad keeno dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo sala allahuma calaa nabiyina maxamed